waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah libaax baa hooyadii wuxuu weydiiyey. libaaxii ayaa yidhi, hooyo inta uu eebba abuuray oo ciidda korkeed ku nool wax naga xoog weyn ama naga bala badan miyaa jira? libaaxadii oo hadalkaas ka jawaabaysayna waxa ay u sheegtay. libaaxadii ayaa tidhi, hooyo haa waa nagala xoog iyo bala badan yahay. libaax oo la wada og yahay inuu xoolaha sayidkooda yahay baa isaga oo sidaa darteed hadalka hooyadii rumaysan waayey wuxuu bilaabay inuu dhulka wareego. kadib markii uu hooyadii fasax ka qaatay, libaaxii wuxuu bilaabay inuu socdaalo dhulka si uu ula kulmo bahallada carrada jooga oo dhan, isagoo hadalkii hooyadiis inuu run yahay iyo in kale ogaanaya. in muddo ah markuu safrayay ayaa waxaa ka hor yimid diindiin. libaaxii ayaa diidiinkii isbariidin kadib weydiiyey. libaaxii ayaa ku jawaabay, intaa ogtahay ma jiraa xayawaan naga xoog badan ama naga bala badan haddaynu nahay libaaxyo? diinkii ayaa ku jawaabay, haa waxaa jira xayawaan kaa xoog iyo bala badan. libaaxii muusan rumaysan hadalkii diidiinka. halkii ayuu uga dhaqaaqay oo safirkiisii sii watay. wuxuu waddada sii hayaba waxaa ka hor yimid dawaco. dawacadii waxay ku tidhi, waxaa jira xayawaan kaa xoog weyn kaana bala badan ee hasdaalin gurigaaga iskaga laabo. libaaxii hadalkaas wuu u cuntami waayey, safirkiisiina ma hakin. libaaxii waxa uu meel ka arkay waraabe socdaal ah. wuu ku leexday si uu u waraysto. waraabihii asagana wuxuu ku jawaabay, maandhow waxaa jira xayawaan halis ah, xoog iyo xeelad badan, haraaraadsanina ma iska dhaaftid. libaaxii asagoo safarkiisii wata waxaa ku soo baxay dabagaale. wuxuu u sheegay in laga xoog iyo balaba badan yahay. sidaa oo kale wuxuu la kulmay maroodi. maroodigii ayaa ku jawaabay, war waxaa jira xayawaan kaa bala iyo dagaal badan ee meesha isaga tag. maalintii dambe ayaa libaaxii oo meel maraya wuxuu u yimid rati dabran. markaas buu wuxuu ka codsaday inuu wax uga sheego arrintuu safarkaas dheer darteed u soo maray. ratigii waxa uu ku jawaabay, waxaa kaa xoog iyo shar badan ninkaas geedka hoos jooga, dabarkan aad u jeedid igu xiray. kolkaas dabadeed ayaa libaaxii ninkii u tagay kuna yidhi. libaaxii ayaa yidhi, nin la ii soo sheegay baan doonayaaye adigu nin ma tahay? goortaas ayaa ninkii oo yaaban wuxuu yidhi, nin waan ahaye maxaa rabtaa? markay intaas isdhaabsadeen baa libaaxii oo aad moodo inuu naxsan yahay wuxuu ninkii u sheegay inuu dagaal u socdo. ninkii oo hadalka libaaxu wax shaki ah uusan ka gelin ayaa wuxuu ku yidhi, adigoo tub dheer soo maray gaajaysanna inaan kula diriro waa igu ceeb. inta aan cunto kuu keenayo isug. kolkuu ninkii gurigiisii tegey ayuu wuxuu dabka saaray biyo. muddo kadibna wuxuu soo qaatay digsi biyo karkarahayaan ku jiraan. dhinaca libaaxa la soo aaday. libaaxii oo isku diyaarinaya waxa la soo wado ee ku jira digsiga ayaa hal mar ka war helay biyo korkiisa lagu shubay. libaaxii ayaa hal mar ka booday biyihii kululaa, dhagortiina ka bidisay. libaaxii ayaa meeshii ka fakaday oo gurigood u cararay halkuu ka jiray. markii uu hooyadii u tegey ayuu uga sheekeeyey wixii ku dhacay. waxaa la yidhi, waagaas libaaxu uu ninka eeday ilaa maanta waxaa la sheegaa inuu ragga gaadamooyee dagaal uusan uga hor imaan karin.